munaasabad ballaaran oo lagu qabtay xarunta ciidamada birmadka Somaliland ayaa lagu soo bandhigay ciidamada ka hortagga rabshadaha iyo waliba gawaarida loogu talagalay inay xaaladda degdega ah u gurmadaan bulshada reer Somaliland kaasi oo lagu wareejiyay gawaaridaasi barasaabada qaar kamid ah gobolada Somaliland waxaana munaasabadaasi goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Ali Maxamed Waran Cadde oo ku wareejiyay gaadiidkaasi barasaabada waxaanu sheegay inay wax weyn ka tari doonaan baahiyihii ay u qabeen gobolada Somaliland inay helaan gawaarida adeega degdega sidoo kale taliyaha ciidamada booliska Somaliland Sarreeye Guuto Cabdilaahi Fadal Iimaan ayaa isaguna dhankiisa soo dhaweeyay gawaaridan maanta lagu wareejiyay barasaabada waxaan leeyahay halkan saaka waxaanu qaybin doonaa baabuurta qaarkood waxaanu u qaybin doonaa gobolada dhammaan inta laamiyada leh marka laga reebo kuwii aan hore u siinay bishii hore sida Boorame iyo Gabiley imikana inta kala ayaa muxuu ahaay loo qaybin doonaa barasaabada nasiibka oo helay laamiyadu gaadhana way xaysan doonaan baabuurtooda haddii la yiraahdo darawalintan iyaga la iman doona waxaanu jecelahay in gaadiidkaas la ilaaliyo isla markaana sida ugu quruxda badan ay u gutaan hawlahooda xaarxiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha gudoomiyaasha gobolada wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee amniga gudoomiyaasha gobolada saraakiisha ciidanka booliiska ciidan weynaha kale booliiska halkan taagan ee kala duwan bahda saxaafadda marka hore waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaad saacada wasiir halkan waxa saaka diyaar ku ah cutubyo ka tirsan ciidanka booliiska oo had iyo jeer heegan u ah hawlaha nabadgelyada ee ay qaranka Somaliland iyo bulshada reer Somaliland u hayaan ciidanka booliisku hawlihii kale ee waajibaadkooda ahaa ayay hayaan waayo waa saacadii shaqada intani waa ciidankii hawlgallada waxa kale oo halka ka muuqdo arkasaan unug xidhan qalabka ka hortagga rabshadaha oo halka imika arkasaan waxa kale oo halkan taagan gaadiid dhowr iyo 20 ah oo 99 iyo isugu jira nabadgelyada wadooyinka kuwaas oo hadda ay afar cusub yihiin kuwaas oo keenay wasiirka wasaaradda arrimaha guduhu lana siin doono gobolada qaar iyadoo horena qaar loo siiyay sida Gabiley iyo Boorame kuwa kale la siin doono sidoo kale iyaguna dhankooda soo dhaweeyay gawaaridan maanta lagu wareejiyay barasaabada gobolada waxaana dhoolatus ballaaran ay ku sameeyeen ciidamada boolisku wadooyinka waaweyn ee magaalada Hargeysa